maamulkooda iyo macallimiintooda oo sanad kasta 2 jeer soo booqdaan Habeeb Psychiatric Hospitals ma aha markii koowaad marar badan idinkaba aad ka tihiin witness markhaati وجهتي مغلقة تقارن كجرنيو أن سيدنا كيسان مانتا وحنولو تودريال معون أرمتي حلقة حتى أن جوجنا دايويني كجرت إسبتالك ترى إسبتالك كجرت مانتا بغل تضباطا إلى بكان include female psychiatric ده ير لقى كلا كيني كينيا إثيوبيا صوماليا إيو يوروبيا أمريكا رمتي قفك مركو قوريسو الله قولسدو إن وقابا ميت كميتا حنونة كلها بمريكا مركو قوريسو الله قولسدو isaga horta cuqdad baa gelaysa bulshadii iyo communitigiina wuxuu kala kulmayaa discrimination ayuu kala kulmayaa isolation takoor isagana waxaa gelaysa stigma cuqdad taasi oo keenaysa labadii qof ee markaa sheekaysanaysa ama ka agdhow تركها كادليسو إنه أمينيو إنه يسقى يهستا وسوسبيشيوس شكي ولا رسريا ستلت كالاقل صعدا تبقى خرشيني يني قرجيان ولا تشتي تبكي لشقى أريق عدوى يقويين معلن أوري أنا وكريهي مركزتا ما توهربنا مركز inaan bararno waa maxay cudurrada ku dhaca dhimirka ama maskaxda what is mental disorder ku dhawaaqa bal what is disorder waa maxay okay mental disorder waa khalkhal ama ama أربشات كنت ماذا فكرك حصوصتا ترانك جراتك قوان قادشة كتبنا اسبتل وكو إيمانا يو تبعتي يتخنك قفكولا والديفينيشن انترناشنال وقيحيد انترناشنال وعالمي هاي تبدأ وما هاي عذره كلها أمريكا هاتك وقامي إنك تسمتين وما هاي عذره كلها أمريكا وخلخل أما أربشات كنت معنا فكرك حصوصتا درانك جراتك iyo go'aan qaadashada kadibna isbedel uu ku yimaado dhaqankii iyo dabeecadii uu qofka lahaa thank you very much New Air College thank you imise ayaa loo qaybiyaa cudurrada ku dhaca dhimirka waa labo mid fudud هي مد عروس أما نيوروسيس هي سايكوزيس أما مانيور mental disorder أما ماتشور mental disorder خلاص الله بس مد فضود مد سهلا يا إيشي كرو وما هاي عذره كلها تمرك الديفينيشن فرت التاكي
وخلخل هي أربشات كنت معنا فكرك حصوصتا درانك قراتك قوان قال الشرع كتبنا isbedel ku imaanayo dhaqankii iyo dabeecadda qofku lahaa xilliga imtixaanaadka welwelka iyo cabsida imaanaysa waa qayb ka mid ah neurosiska marka lagu yidhaha presentationkaadaa ku qoran ee saaha u geliyayso dhiidkuu kaa imaanayo ee gabadhii jalbaabka jiijiinaysa ama wiilkii waa neurosis ogow waaga markuu baryo haddii aadan hurdada ka soo toosin adigoo nashaad ah faraash ah firfircoon haddaadan soo toosin caajis aad ku soo toosto waxaad qabtaa mental disorder ogow maxaa lagu garanaya calaamadaha lagu garto maxaa lagu gartaa qofka qaba neurosiska maxaan ku garanaynaa waxaan ku garanaynaa eg xanuun burbur ku imaanaya jirkiisa tin iyo xirib caajis rasuulka sala allahu alayhi wasalam ilaahay buu ka magan geli jiray acuudu billaahi buu yihi rasuulka acuudu billaahi min alcajzi waalkasli waalbukl haddii aadan soo toosin murqahaaga oo firfircoon jirkaagii oo sharqamaya faraxsan baa la cadaynaysid waaga baryey aad ku faraxsan tahay oo ogow waa caafimaad qabta laakiin no good waayahay waxay xasuusinaysaa waa maxay horta waa maxay caafimaad qab fayaqab muxuu yahay yaa caafimaad qaba horta fayaqabku waa fayaqabka jir ahaan fayaqabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo diin ahaan maaliweyd markii dawladdii ay isku dhaceen mucaaradka kam cabsi ayaan dareennay oo waxaan ku jirnay neurosisaan ku jirnay welwel waxaad ku guurta ma haysatid meeshii waa lagu soo kor tegay laba ciidan dhexdood baad gashay neurosis hooyada ayaa ugu daran dhibka markaa gaaray mid xusuusno fayaqabka maaha oo keliya maqnaanshaha cudurrada ku dhaca jirka oo keliya oo kaa maqan ma aha waa shilinka oo kale shilin idinka sooma gaarin xarash iyo madax mala kala fuji kara mala kala maarmi kara maya marka laga hadlayo marka caafimaad marka laga hadlayo waa wafaya qabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo spiritual diinta waad ku toosnaato haddaadan tukanaynin caafimaad ma qabtid juskaaga haddaadan akrisanaynin caafimaad ma qabtid haddaadan soomaynin caafimaad marka spiritual ruuxiyaad u dhimatay khalaas بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دمان وسلامة معلمين جيسي جوان يو دكتور حبيب وأستغنى أمانة كسو بوخني حبيب منتل هوسبيتال يو أرديدا قداشي جدون أرديدا قداشي جوان يعني دروستا أثلثو قادني مانتا معنا وحاو ماني دكتور حبيب وحاو كأني جو الريال يو معون يعلاب بدن ما هسنت كيقوري إيمانو sanado badan waa imaanay haddana waxaa u imaanay in aan u keenno bukaanada meesha ku jiro in aan caawino waxayna ku mid yihiin waa walaalahayna Soomaaliyeed waa yacni bulsho Soomaaliyeed u baahan in yacni wax loo qabto macnaha sanad walba waa imaanaa sanadkan ma aha sanadkii ugu horeeyay aan imaano waxay noo tahay sanadkii yacni afraad aan imaanayno mental hospital dhammaan ardayda dafcaddii tobanaad waxaad aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan imaano mental hospital waxaad aad iyo aad ugu mahad celinaynaa
دكتور حبيب ومر والبو نقصو دبيو إسبيتال كيسا وحنا كم ديهاي دخاتيرتا سكولكا نيو إيرا كوميونيتي كوليج أرديدنه wax ka baray soo aasaasay nagu dadaalay psychiatric disease waxyaalo badan maadooyin badan la soo baray waxa aad ugu faraxsanahay ustaad Xuseen oo dhankeyga asagana taagan oo mar walba na garab haayo isbitaalaad iyo hadee noqoto yaani maadooyin kale ustaad Farxaan asagana aad ay ugu mahadsan yahay wuxuu kamid yahay maamulka iskuulka New Era Community College iyo macalinka waxa soo baray ustaad Maxamed Nuur Oore dhamaan ardayda waa u mahad celinaa meel walba ay joogaan انت maanta ay maadane oo keenay deeqda wax yaani istogxaab waa ugu mahad celinaa dhamaanna waa maasantiin wa tanabulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ilaah baa ma hada iska maanta halkan nagu soo kulmiyay annaga ka socono iskuulka New Era Community College maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda dhamaan oo isxilqaamay in ay kaalmeeyaan ama gacan ay siiyaan walaalahooda xanuunsan ay jooga isbitaalka دكتور حبيب mental hospital oo maanta ay bisha ay tahay 11 bisha shanaad 2021 ardayda anaga maanta aan soo tababarnay ayaa aad isku xilqaameen inay gacan weyn ay ka geystaan in ay kaalmeeyaan walaalahooda waana arday anaga aan muddo soo saaraynay ama soo tababarnay kuna kalsoonahay qaybahooda kala duwan ee culuumta caafimaadka maantana ay bisha Ramadaan ay gawaabsi tahay ay maskaxdooda iyo dareenkooda iyo aqligooda iyo maalkooda ay u garteen walaalahooda in ay wax kaalmo ah ay soo gaarsiiyaan maanta Ilaahay baa ma hada iskale ayagana meesha ay ka soo bixiyeen bedel khayr qabo Allah siiyo waxaan kale u mahad celinaynaa maamulka isbitaalka Dr. Xabeeb oo maanta halkan aad noogu soo dhaweeyay annagana aan ugu talagalnay in aan kaalmo aan soo gaarsiino aad ugu mahad celinayna 100% waxaan kale u mahad celinayaa dhamaan ardayda marka halkan isu soo taxalujisay in ay kaalmeeyaan walaalahooda mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan Allah ugu baryayaa inuu ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin uu siiyo ayaga iyo waalidiintooda ilaahay baa maanta iskale maanta noo suurto galiyay inaan maanta joogno xarunta Xabeeb Mental Hospital oo lagu daryeelo bukaano fara badan maanta halkan waxaa nala jooga dhakhtarkeena mar walbana aan ku faano agjoogiisa waan jecelnahay dabcan halkan maanta waxa aan ku qaadanay kuna fahanay doorkeenana ku wada muujinay sida mar walba oo dhakhtarka uu garab taagan yahay bulshada qaybahooda kala duwan dabcan maanta halkan waxaan u nimaanay inaan soo booqano ka kororsano ka faa'iideysano dhakhtarkeena mar walbana aan jecelnahay inaan garabkiisa aan istaagno waxaan u mahad celinayaa ardayda dafcadda 10aad maanta halkan qayb kamida nala jooga iyagana waqtigooda qayb kamida ku soo muujiyay halkan inay yimaadaan ma aha markii ugu horreysay aan nimaano waxaan rajaynaynaa du'aalad insha Allah bisha hadda lagu guda jiro Ramadaanka oo maanta ugu dambayso deeqdii aan ugu talagalnay inaan gaarsiino walaalaheen ka xanuunsan dhimirka oo aysan waxba ahayn aan rabnoona inaan u muujino bulshada qaybaheeda kala duwan ee caafimaadka qabta in maanta ay u baahan yihiin maantayna ay u baahan yihiin garab istaag dhinac walba ah waxaan soo fiirinay soo kormeernay aan aragnay baahida faraha badan ee maanta looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay ka caawiyaan nana istaagaan walaalahood u baahan daryeelka caafimaadka daryeelka asaasiyan qaybaha asaaska u ah nolosha u baahan in la caawiyo waxaan rajaynaynaa du'aalad insha Allah inaguna inaan u noqon doono message gaara bulshada qaybaheeda kala duwan si xarunta ay u hesho waxyaabo dheeraad ah ay hadda baahidooda u taagan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar labaad iyo mar saddexaad Dr. Xabeeb waan ognahay ardaydan intuu u qabtay iyo juhdiga uu muujiyay iyo doorka uu waqtigiisa noo siiyay iyo dadaalka uu noo muujinayo mar walba
ma noqon doono dadka ugu dambeeya ama ma noqon doono maanta in halkan imaanshaheena maanta noogu dambeysa hadduu aalid insha allah waxaan rajeynayaa hadduu aalid insha allah bilaha soo socda inaan soo muujino doorkan door kasii fiican oo baahida hadda naloo soo bandhigay inaan isagana aan doorkooda soo buuxino hadduu aalid insha allah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macalinkeena isagana aan jecelnahay xarunta tababarka isagana mar walba nagu gacan siiya ustaad xuseen iyo macallimiinta kale oo aan ku hadlayo anigoo ku hadlaya magaca maamulka centerka xarunta New Era Community College iyo macallimiinta anoo ku hadlaya dhammaan ardayda waxaan uga mahad celinayaa sida wacan oo wanaagsan qiimaha iyo qadarinta leh iyo darajada leh ay mar walba u jecel yihiin inay caawiyaan gacan qabtaan doorkooda u muujiyaan walaalahooda u baahan nooc walba oo daryeel asaasiyan ah dabcan dareenkayga iyo shucuurtayda waxaan halkan ku muujin kara ma aha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan mar walba aan garabkooda istaago mar walbana ka warqabno dadka innaga nala saaxiibka ah nala midka ah laakiin xoogaa caafimaad darro halkan loo keenay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad tamaam ah uu siiyo ajri xasanaadna uu ka siiyo doctorkeena aadaan umahadsantihiin waqtiga uuna siiyana waan uga mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu